guddiga culimada marka go'aamadoodii waa sidan markii arrimahaas la kala sheegtay sababta u ah mushkiladan ay culimadu isla qeexeen waxay go'aansadeen in go'aamadooda ay u qaybiyaan laba qayb go'aamo joogto ah oo permanent ah oo long term ah oo mushkilada jirto dhan soo afjaraya iyo go'aamo ku meel gaadh ah oo sii jira dadkana lagu kala dejiyo lagu kala saaro ilaa go'aanka finalka uu ka imaanayo go'aanka finalka ee arintan soo afjari kara muxuu yahay culimadu waxay u arkaan xalka finalka ah ee mushkiladan oo dhan soo afjari kara inuu yahay in la xadeeyo dhul deegaameedka labada beelood ay kala degaan oo si cadna loo xadeeyo arinta oo xadeynta ama xuduudeynta cad ah inay tahay xalka rasmiga ah ee mushkilada labada beelood u dhaxeeyana labada beelood way isla qirsan yihiin oo waxay ku caddahay heshiiskoodii ay wada gaadheen 15 bishii 8aad 2020 marka maadaama arinta xadeynta xuduudaha dhul deegaameedka labada beelood ay tahay arin dawladda ay qaban karto awoodda guddiga culimadana ka baxsan guddiga culimada waxay dawladda iyo stakeholderada saamilayda kale arintan ay khusayso ay maxay ahayd u tawjiihinayaan ama u jeedinayaan in si degdeg ah muddo 6 bilood gudaheeda in dawladdu xuduud cad ay dhaxmariso dhul deegaameedka labada beelood ay kala leeyihiin xulusha ku meel gaadhka ah oo mushkilada lagu dejinayo guddiga culimada ayagoo tixgelinaya muhiimadda ay amnigu uu leeyahay iyo sidoo amnigu muhiim ugu yahay nolosha bini aadamka ayagoo tixgelinaya qof bini aadan oo xaq darro loo dilo in cirka iyo dhulka iyo waxa ku dhax nool oo baabaa ay ka culus tahay in degmooyinka hadda jira ay labada beelood degan yihiin dadka ay ku filan yihiin sidaa darteedna wax baahi oo qasbaysa degmooyin cusub in la sameeyo inaysan jirin iyo saasoo kale ayagoo tixgelinaya mushkilada ka hortageeda inuu ka wanaagsan yahay daaweynteeda markay dhacdo kadib waxay culimada soo saareen go'aamadan ku meel gaadhka ah kow beesha Garre iyo beesha Murule midna degmooyin cusub kama samayn karo dhulka la isku hayo oo khilaafku uu ka taagan yahay ilaa xadeynta rasmiga ah dawladdu ay ka samaynayso ay ka imanayso arrinka labaad wax mashaariic ah oo horumarineed inaan laga fulin karin dhulka khilaafku uu ka jiro labada beelood u dhaxeeya ilaa xuduudeynta cad ee rasmiga ah ee ka timaado saddex in maxay ahayday degmooyinka hore u jiray ee mushkiladan hadda dhacday ka hor labada beelood samaysteen ay wada deganaayeen sidoodii ay u jiraan laguna nabad galo ilaa xadeynta rasmiga ay ka imaanayso oo kadib laga ogaanayo deegaamada meesha ay raacayaan afar waxaa jiray heshiisyo hore oo labada beelood ay wada gaadheen oo danta laga lahaa ay ahayd khilaafaadkan soo noqnoqday in lagu xaliyo guddiga culimada waxay xukumeen ama go'aamiyeen in heshiisyadaas hore oo dhan la hirgeliyo lana dhaqangeliyo oo uu ka mid yahay heshiiskii 2005 ee loo yaqaano Umal Accord wax alaala wixii ku saabsan khilaafka dhulka daaqa biyaha kufsiga beeraha goynta dhirta dilalka aan la garanaynin oon cadayn oon la isla qirsanayn yani waxaasoo dhan waxaa lagu xalinayaa sida uu qabo qodobka 7.3 oo ku soo arooray heshiiskii Umal Accord ee 2005 in lagu xaliyo culimada saasoo kale go'aamada waxaa ka mid ah cid allaale ciddii mushkilo geysata oo labada beelood ka tirsan inaan maxay ahayday inaan la difaacin oo aan dhabarka la marsanin balse beelaha ciddii mushkilaad samaysa ay soo qabtaan cadaaladana ay hor keenaan dawladda iyo cid walba ay khusayso arrintaa qabashadeedana ay gacan ka siiyaan khilaafaadkii ka dhacay iyadoo mushkilooyin fara badan bay keeneen oo hadda u dambeeyey waxyaalihii ay keeneen khasaarooyinkii ay keeneen waxaa ka mid ahaa 8 qof inay ku nafwaayeen 5 raga iyo 1 dumara oo beesha Garre ka soo jeeda iyo 2 rag oo beesha Murule ka soo jeeda dhaawacyo isugu jira kuwa culus iyo kuwa fudud dumar la kufsaday kufsiyada kiisaska qaybna la isla qaatay labada beelood qirteen qaybna la isku khilaafay oo la diiday saasoo kale hanti la kala qaatay oo labada beelood gacantooda haddaba ku jirta saasoo kale hanti la burburiyay si toos ah loo burburiyay oo waxba raada uusan ka jirin ama la gubay waxaa kaloo jirtay dhacdo ah nin bas wada oo darawal ah in la xabadeeyay ciddii arrintaa geysatayna labada beelood ay sheegteen labaduba inaysan ayaga ka tirsanayn saa darteedna maxay ahayday aan la garanaynin cidda ay yihiin iyo hawiyadooda culimada go'aamada soo socda ayay ka bixiyeen khilaafaadkii ama dhibaatooyinkii ama khasaarihii ka dhashay khilaafaadkii ama shaqaaqadihii u dambeeyay ee iyado wixii dilal ah
markay culimadu gorfeeyeen oo isdul taageen dilalka la kala sheegtay waxay go'aan ku gaadheen oo soo saareen beesha Murule inay bixiyaan mag 350 halaada oo ku magaan dilka 3 nin iyo hal qof oo dumar ah oo ay la dheer yihiin beesha Garre labada beelood ayaga xor waa inay ka heshiiyaan magta inay geel ku kala qaataan ama qiimihii geel ay ku kala qaataan magtaas waa in lagu bixiyaa muddo 3 sano ah magtaas beesha Murule ay bixinayaan oo 350 halaada waa in lagu bixiyaa muddo 3 sano ah sanadka koobaad 150 halaad ama qiimahoodii kii lagu heshiiyo sanadka labaad 100 neef oo geela ama qiimahooda sanadka saddexaad 100 neef oo geela ama qiimahooda wixii lagu heshiiyo waxay fiiro gaar ah oo muhiim ah guddiga culimada ah waxay u sheegayeen maxay ahayday beesha magta qaadanaysa Garre in magtaas ay leeyihiin dadka la dilay dhaxalkoodii dadkii lahaa ayaa magtaas xaq u leh sidaa darteed beeshu waa beesha Garre magtaa cid kale ma siin karaan qaab kalena uma adeegsan karaan wixii dhaawacyo ah dhaawacyada la kala sheegtay guddiga culimada markay isdul taageen waxay u qaybsameen dhaawacyo culus iyo kuwo fudud guddiga culimada waxay ay isaga tageen aysan xukun ka bixinin wixii dhaawac fudud maslaxa guud iyo in la xaqiijin waayo darteed ayayna uga tageen dhaawacyada culusna guddiga culimada waxay ka soo qaadeen keeska Maxamed Nuur Soomow Diqa oo beesha Garre ka dhashay waxayna culimada ninka u xukumeen beesha Murule ninka inay siiyaan magdhow ah 300,000 oo shilin magdhow ah 300,000 oo shilin waana in magdhowga beesha Murule ay ku bixiso muddo bil gudaheed laga bilaabo maalinka heshiiskan la saxiixo oo bisha 8 maanta ka bilaabanaysa bil wixii kufsi ah waxaa jiray dhowr kees oo kufsi ah oo beesha Garre sheegteen inay dad ka mid ah beesha Murule ay geysteen keesaska waa la isku khilaafay waxaan ka ahayn hal kees oo labada beelood bay isla qirteen sidaa darteed culimada waxay xukumeen keeska kufsiga ah gabadha loo geystay in la siiyo meher 60,000 oo shilin ah meherkaana waa in lagu bixiyo muddo bil gudaheed bishaas oo ka bilaabanaysa taariikhda heshiiskan taariikhda go'aamadan la bixiyo oo maanta ah wixii hanti oo la kala hayo waxaa jira sheegashooyin hanti la kala qaaday oo labada beelood gacmooda ku kala maqan sheegashooyin sida ayaa jiray labada beeloodna way isla qirteen hanti la kala qaaday oo beelaha gacmahooda ku jiray inay haddaba jirto sidaa darteed culimadu waxay xukumeen wixii hanti ah ee labada beelood ay kala hayaan in la soo celiyo dadkii xaq u lahaayoo lahaa hantidana loo celiyo beesha Garre wixii hanti oo la kala hayo beesha Garre waxay hadda gacanta ku hayaan oo qirteen oo beesha Murule ka hayaan maxay ahayday hal biki iyo gaari barobokis ah gaariga iyo bikida beesha Garre waa inay beesha Murule ku wareejiyaan muddo 2 asbuuc gudaheeda beesha Murule waxay qireen inay gacanta ku hayaan oo Garre ka hayaan 2 biki labada bikina waa inay beesha Garre gacantooda ku celiyaan ama u celiyaan muddo 2 asbuuc gudaheeda wixii hanti oo burburay ama la gubay xalintooda waxaa loo marayaa qaabka ku xusan qodobka 7.2 ee heshiiskii Umal guddiga culimada ah waxay raacinayaan wixii hanti oo burburay ama la gubay in dawlad deegaanka gobolka Mandera ay daba gasho ay xaqiijiso wixii suurtagal ah kadibna dadka dhibaatadu ay gaadhay in maxay ahayday la sabirsiiyo si boogaha iyo dhaawacyada dhibaatada ka dhashay loo dhayo